waxaan waraysigan la yeeshay boqor cismaan oo maxamuud boqor buurmadow waa hogaamiye dhaqameed ka mid ah hogaamiye dhaqameedyada Somaliland oo hadda ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ugu horeyna waxa uu ka waramay xaaladda guud ee dalka waxa weeyaan run ahaantii waxa ka jirta abaar aad iyo aad u culus oo runtii aan oran karo ilaahay unbaa ina ka saari kara oo xoolihii iyo dadkii iyo ummadii oo dhan ay dhibaataysan tahay way ka jirtaa waxa kale oo ka jirta siyaasad xumo baa ka jirta dalkii baahsan oo aan oran karo waa aafo qaran maxaa ka mid ah in arrinta aafada qaranka aad carabka ku dhufatay wallahi adeer doctor baan ka hadlay run ahaantii waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u qaateen ama qaab mucaaradadeed inaan uga hadlayo ama qaab digasho aan cid ku diganayo inaan uga hadlo laakiin waxaan uga hadlay run ahaantii Soomaalidu waxay jeceshahay danta qarannimada inaan laga hadlin dan qoys iyo dan ardaa iyo dan shakhsi ummadda ku soo koobnaato laakiin anigu badanaa waxaan jeclay waxa masiirka guud ku dumayo inaanan cidna uga gaban inaan ka hadlo waxaan u arkaa in hogaankii Somaliland iyo siyaasadiisay ku socotay ay luntay waxaan u arkaa ninka la doortay odayga ahi inuu noqday nin runtii u baahan isaga in cid la xanaaneeyo iyo maanta in haddii aan laga leeyahay isaga loo gurmado u baahan oo caafimaadkiisu oo aan dalka ahaan karin ayaan u arkaa xogaal ahaan markaan runtii u ahay laakiin run ahaantii waxaad moodaa inaanay dadka Somaliland ku baraarugsanayn inay siyaasadda ka gacmaynayaan oo fandhaal ka geliyeen meelo aanay ahayn in laga odoroso waayo waxaad moodaa inay ku mashquulsan yihiin maanta in laga hadlo xisbiya la furto iyo siyaasad iyo meesha anigu waxaan arkaa inaanay arrinka ool arrinkii waxa weeyaan meeshii waxa taalla matter of constitution ma taalo matter of the policy ma taalo waayo policy meesha maanta ma taalo waxa weeye laga hadli maayo constitution baa yaalla ninkii u hagan karo dalkii ma aanan karo kamana warhayo dalkan uu hogaaminayo waxaa ku shaqaysanaya maafiyo koox maafiya oo aan anigu u aqaano al-jawaasiis al-mutadawiciin oo dibadaha gaalo ka keensatay oo danihii ay u keensatay ilaalinaya iyo koox shabaab nasakhan ah oo ka yimi koonfurta fikir ilaa Afghanistan laga soo dhoofiyey dalkii ku qabsaday oo aan dadka ku baraarugsanayn laakiin ka faa'iidaystay oo ka indheeraaday dadka siyaasadda ku jira oo markuna gaadaba ku sameeyey waxa la wixii siyaasiyiin ahaa oo bogi kale u rogay arrinkaasi waxaan u arkaa inuu yahay ayaan darro aad iyo aad u baahsan waxaan u arkaa inuu masiirkii taladu ay u gashay dabaan u turay oo cadowa oo aynan isku mawqif ahayn inay u gashay baan u arkaa dhawaan waxaa yimid dalka Imaaraadka Carabta madaxweynaha iyo wafdi uu hogaaminayo idinku ma isaragteen oo ma kulantay weli madaxweynaha iyo wafdiga hogaaminayo wallahi adeer anigu markaan runku sheego madaxweynuhu hogaaminayo ma arkay waxa ka koox uu afduuban yahay oo wada tabaan u arkaa oo iyagu isku mashquulsan oo kala dhacsanayso maalin boqol goobayso inay ku shaxaasarto oo sumcadiisa ku ciyaarto laakiin ma arko nin wax hogaaminayo meeshan igama muuqdo goorma adiga kuugu dambeysay madaxweynaha oo aad hor fadhiisato aad la hadasho wallahi intuu dalka qabtay muddo 6 bilooda habeenkii haddaan isarag maalintii haddaan isarag habeenkii waan isarkaynay waxaan ku talinaynay balanta muddo cid ka saari karta hawshatan in la helo ayaan daro in la helo xisbigiisii oo talinaya oo haddii aan laba leeyahay talada gacanta la haya ayaan daro waxay noqotay raggii aan ku haleynaynay inay noqdeen rag aan masiirka dambe xataa lagu hadlayn karin waayo muusabixi oo kale iyo inay carruur yaryar intay u timaado iyo raggii waaweynaa xisbiga hogaaminayay carruur yaryar intay taladii kala timaado oo taladii ugu timaado inay kala wareegto oo cidlo lagaga tiiriyo oo maanta la xisbigii laga faramuujiyo oo maanta waxaan u arkaa runtii inaan xisbina gacanta ugu jirin talana gacan ugu jirin halkii ay dalka ka ilaalin lahaayeen iyo xisbigii dadku doortay ee talada lagu aaminay inay dalkii meel cidlaa dhigeen oo cadow iyo shisheeye iyo argagixisa gacanta u geliyeen baan anigu arkaa arrinka aan ka qaylinayay anoo oday weyne aan ka aaminsi karin waa in arrinkaa dalku meesha ku socdo weeyaan waxaan u arkaa siyaasad xumada halkan taalla waxaan u arkaa hadda ceebta ka dhacday Dubai wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiiradii kale ee la socday iyo taliyihii badda iyo wixiiba waxa laga fariisiyey galmudug iyo Puntland iyo ururada yaryar koonfureed oo ay la saami noqdeen oo uu khudbadeynayaa wasiirkii TFT-da arrimaha dibadda oo ku fadhiyaan calankii Soomaaliya hor yaalla oo aan dadka lagala xishoonayn waxaan ka hadlayay maalin hore waxaan 3 qodob inoo kala
dadka reer Somaliland inaynu shabaabna sakan baa inay qabsadeen isu dhiibno shabaabka dhabta ee qoodha inaynu isu dhiibno wax la qaybsano kismaayo nabadgelyo baynu nabadgelyaanay inaynu isu dhiibno inaynu dowladda koonfureed maanta wax la qaybsano inagaan urur yar ahayn koonfurida ugu inaynu isu hor fadhiisano oo wax la qaybsano inaynu kooxda tan dalka qabsatay meesha sida daran inoo galaysa lixdankii maynu ka qiimo liidanaa maanta waxaynu la fadhinaa shan urur oo habar jibila oo shan dowladood habar jibila aynu la sibannahay wabaynu hor fadhinaa wax iska daay soddon dowladood baynu hawl koonfurida ugu yeelaa waxaan ugu qaybsano dowladdii halkaasay dadkii ku tuurtay waxa meesha laga hadlayaana waa shaxaad iyo shirkado yaryaroo la iibinayo iyo magacii dowladda la xaraashayo iyo dadnimadii oo la baabiinayo dadka Somalilandna dan kama leh waxaan leeyahay markaa meesha tani waxa weeye nasiib darro iyo aafa qaran baa ka dhacday siyaasad xumaa ka dhacday dadkuna kuma baraarugsana hore ayaad arrintan ka hadashay oo umaad yaraysan ilaa iyo hadda cid kula fahanta ma heshay oo ma la kulantay waxaan ku dadkii way fahansan yihiin maanta waad arkaysaa Master Gaboose wuxuu ordayaa inuu xisbigiisa kala furto isagoo awoodii dowladda ka faa'iidaysanay inta kooxda kale maafiyada ay ka maqan tahay waad arkaysaa waxa halkaa ka iman karaya waad arkaysaa rag waaweyn oo magacyo sheeganaya ay ku shaqaysanayaan oo xisbiya ku hadlaya afkooda aad arkaysaa hadlayo oo xisbiyaanu furanayna meesha xataayiban haddii xisbiya la furo waan ogahay inay soo horta go-aanka soo baxaya ay soo saarayaan guddidan cidda geysatana waanu garanaynaa ragga hagayaana waa rag wadaadaa xabjina bay u badan yihiin ama salaadiin ha ka soo jeedeen ama meel kale ha ka soo jeedeen waxay ku wadaan inay horta xisbiya furaan laakiin ragga ku naaloonaya in xisbiya loo furayo siyaasiyiinta damaca been bay ku dhacayaan waxay doonayaan xisbiya ay leeyihiin inay furtaan oo kooxdani ay leedahay oo aan saddexdii xisbi horena u faa'iidaynayn dadka shacabka ee doonaya inay jaanis ka faa'iideeyaanna u faa'iidaynaynin marka asbaabaynu dalka fawda u gelinaa maba jirto mar haddii wax sid cadaalada loo maamulayo iyo xisbi furasho jirin maadaama aan hamigii xisbi furasho iyo Somaliland oo lagu siinaaloonayo jirne maanta Soomaali weyn aynu ka mid noqonay oo karaabadayna halkaa maraysana waxaan qabaa anugu war meeshii laba taalo in laga hadlo maanta ninkii dalka kala hagi lahaa ee waxaan kala joojin lahaana ma jiraan wasiiradii dalka waxaa yaandaraa ingiriiska waxaa maraya wafdi halkan wafdiyadan waa wada shaxaad dadkii diyaar dal baa loo dhiibay wasaarada inay maamulaan islaamihii wuxuuoodoo dhan ku huray dadkii abaara haysatay nin waliba qoyskoodii la dabaalan kari laayahay nin waliba dhisidii xisbiyadii hore aanu kasoo kabanado dakharadii iyo dhaawrigii ku yaaliin inay lacag u soo dawarsi tagaan waa dawlad wada shaxaadtaga waa dawlad baryataga dadkana ma gaarayso waxaa leeyahay dadka dawladaha lagu wareerinaya war dadkan dhex marya wasaaradihiini ka warramande ku noqda wixii laydin doortay dadka xilkooda u celiyo baryaada shaxaadtaga toos ugu soo bareera laakiin waa maxay wasiirada tan dawladaha wareegaya hadee goyaasha dadka gacmaha oo horta eed iyo sharaftarayna ku tag carabkana dawarsi baa lala joogaa ingiriiska dawarsi baa laga magacii karaamadii dhulku ku dhacay waa ayaan daro waxaynu ku dhacnay saami aad iyo aad u liid baryahan dambe waxaa badatay hadalhaynta iyo bixinta khayraadka dhulka iyo shirkado la siinayo meelaha albowlaha oo dhaqaalaha dalka arrimahaasu ma waxtarba mise waa dhibaato sida la aragtaa waxa weeyaan horta dadka kani dad waxaanay gelayaan dadkan damiirkooday arkeen dadka Somaliland inaanay diidayn bay arkeen inaanay waxaan ka xanaaqay baa maalin dawlad waxay soo qortay journalkan iyo la yiraahdaa wuxuu soo qoray iyadoo faahfaahsan wasiirada ingiriiska iyo shirkadihii heshiiska la galeen ee ay ka mid ahayd OBHIR oo shirkad la yidhaahdo oo afrikaana oo South African oo batroolka qoda laakiin waxay kaloo ka shaqaysan storage chemicalkan iyo sunta wasakhaa way kaydisaa waxaa ka mid ah ilgiinkiiba heshiiska ay la gashay waxaa ka mid ah shirkado kale oo fara badan bay la galeen Ocom shirkada la yidhaahdo storage shirkado badan bay heshiis la galeen oo la soo qoray waxa weeyaan sharciyada baarlamanka lama soo taagin hadduu xalaal yahay dawladda markiiba midiya qaba lahayd heshiiskaasaanu soo galay heshiiskii baarlamankaa la keeni lahaa dawladdaa loo keeni lahaa dadka weli al'aankaa shandadahay ku sitaan weli heshiiskii bay galeen waxaan leeyahay shirkadaha ajeenibka ee galay ee sunta aasaya dadka anagu waa lagu hadalay waa loo diyaar meel qura ay deen karayaan dadka ajnabiga cadcaday soo kaxaysan ma jiro meel walba dagaal baa kaga dhacaya iyaga ka mas-uul noqonaya cidda heshiiska la gashay shirkadaha kan heshiiska usoo bareeray xaaraanta dadku aanay ku qanacsanayn sharciyada golaha waxaan golaha baarlamanku soo baaskarin heshiisaan soo baaskarin inay dalkayaga ka socdaan anagu ma ogolin shacabku ma ogola aad bay awareness sugan yihiin dadkayagu waxa weeyaan anagu taasaanu ka shaqeynayna waxa weeyaan leedahay xeradii baan ku fadhiya annaga dadkayagu
waxay gaadanayaan iyo waxay gabayaan iyo waxay xaraashayaan wax ka kala jiraan dadku waa u diyaar degma iyo gobol gobol waxay wadaan waa laysoo taagaya waxay xaraashayaan iyo waxay wadaan iyo waxaan sharciyada oo dhan balla waxaan ugu qaadayna inaan midh ka socon iyagu waxay iska wateen ha saxeexeen ceeb iyo qiimo darri unbay keeneen waxaan leeyahay waxaasoo dhan anigu maanta ka hadli mayno waxay qaadanayaan ha qaateen waxay baadinayaan maanta masiirkii in la badbaadiyo dalka ayuu u baahan yahay dalka somaliland dadkii salaadiintii waad aragtaa way qaylinayaan gobolladii waa laga qaylinayaa duniyada dhan way baabaasan tahay runtii siyaasadda tani midkiina soo martay maaha waa siyaasad aafad horena runtii weligeedina may soo marin somaliland sidoo kale may soo marin boqor cismaan adigu muddo ayaad ku sugnayd dadka waddanka abudabay goorma laga yaabaa inaad waddanka kusoo noqoto waddanka adeer dhaqsaan ugu noqonayaa waxa weeyaan si dhaqsaa baan ugu soo noqonayaa waxaa laga yaabaa marka hore inaan maraykanka iyo ingiriiska midba weyn ku maqnaado midba weyn inaan usoo baxo aan dadka soo wacyigeliyo dabadeedna adigu 20 casho gudahood inaan dalkii dib ugu noqdo ayaan doonayaa within 20 days siyaabo fara badan baad waddanka uga hadashay oo madaxda uga hadashay oo siyaabo badan baad u taataabatay horena waxaad u ahayd boqorkii ka horeeyay Hargeysa waa lagu xiray marka miyaad ka baqan in adiga laftaada jeelka lagu dhigo marka soo noqoto waxaan ku yiraahdaa haddii sharciyan lagu xidhayo ama aan dambi aan dalka ku xidhay ama iskaga diyaar ah laakiin kooxdan maafiyada imana xidhayso imana xidhi karayso kumana dhacayso wax sharciyan waa iska celinaynaa waayo waxa weeyaan ma dhici karayso waxa in aan sharci ku shaqaynayn cid alla cid isu dhiibaysaa ma jirto laakiin ninkii isu dhiibaya isaga og waana ka degaynaa waana ka bareeraynaa waxa weeye sifa sharciya haddaanu dembi dalka ka galay ama qaran ka jiray annaga ayaan hore xabsiga geynayna laakiin maadaama aan dowladda dowlad sharci ku fadhida ahayn kooxdani koox anu ma aqoonsanay maanta dowlad sharciya dalkii ka jirto waayo waxa weeyaan ninkii xukumayey ayaa ku magacaabay cidda magacaawdana waxa weeyaan waa cid maanta marfuuc alqalama oo aan dalka ka talin maadaama ay sidaa tahay waxay ku dhawaaqaan iyo heshiiskay galaan iyo waxoodani waa xaaraan mana ixtiraami doono marka anigu waan ka degayaa kumana dhacaan shacbigana annagaa xukunna ciidamada annagaa xukunna waxaan usoo jeedinayaa soddonka askari ee la xidhay haddaan degdeg weli loo sii dayn waxaan ka baqayaa ciidamada qaranku inay gadoobaan waxaan ka baqayaa intuu dalkan maqan yahay sidii boqorkii boqorloo iyo yonis dalka libiya sidii loo qabsaday in dalka isagoo ka maqan ciidamada gadoobaan oo qabsadaan haddaba ciidamada iyagoo dhacanta iyo gaajada iyo mushaar yaraanta iyo kharash yaraanta u qaabilay waxaan ka baqayaa inuu dalku soo dagalo ciidamadu gadoobaan dimuqraadiyadii lunto anigu waxaan leeyahay war si degan aan nidaamkan u bedelno dalkana rabshada ha laga daayo dadkan kicinta wada waa dal doonaya dalku inuu soo burburo ha laga joojiyaa leer waa boqor cismaan oo maxamuud oo ku magac dheer boqor buurmadow oo telefoonka ka soo jiray dalka imaaraadka carabta mahadsanid